waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabweynaha reer Somaliland meel walba joogaan gaar ahaan dhalinyarada reer Somaliland ee dalka jooga waxaan jecelahay maanta halkan inaan ugu soo jeediyo baaqaas ku saabsan in maalmahanba uu furan yahay kaarkii xubinimada ee xisbiga walaalayaal haddaynu inagu dhalinyartii qaranka nahay haddaynu nahay mustaqbalkii dalkan jiilkii soo kacay waxaa loo baahan yahay inaynu mustaqbalkeena gacanteena ku saleysano waxaa loo baahan yahay inaynu miiska wax lagu goynayo goobjoog u ahano waxaa loo baahan yahay inaynu 50 sano amba 20 sano soo socda Somaliland meesha ay ku dambeynayso aynu qayb ka noqono waxaan baaqaas ugu soo jeedinayaa dhalinyarada reer Somaliland inuu furan yahay kaarkii xubinimada ee xisbiga gaar ahaan garabka dhalinyarada oo ah garabka ugu weyn ee xisbiga mar labaad waxaan dhalinyarada reer Somaliland jecelahay inaan u soo bandhigo fursad ay kaga qayb gali karaan khaladaadka dalkan ka jira sidii ay u sixilahayeen waynu ognahay maanta dalkeenu halkuu taagan yahay iyo halka aynu jecelnahay inuu taagnaado waxaan jecelahay walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaadba inaad ka soo qayb gashaan oo kaarka ka soo qaadataan xarunta guud ee xisbiga oo ay ka socoto kaar qaadashadii xubinimada xisbiga waxaan u dirayaa kale dhalinyarada gobolada inay xafiisyada gobolada ay ku diyaar yihiin kaarkii xubinimada ay halkaas u doontaan mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada aynu gacmaha isku qabsanayno dalkeenan isbedel dhaba ka sameeyno aad iyo aad u mahadsantiin